Assalaamu calaykum. Afrika waa qaaradda labaad ee ugu weyn adduunka markii laga soo tago Aasiya, taasi oo ah qaaradda ugu weyn adduunka. Afrika ayaa waxay ku wareegsan tahay 30.2 milyan oo kiiloomitir. Qaaradda Afrika waxay leedahay 54 dowladood iyo 10 dhulal oo aan madax bannaanayn. Haddaba, mowduuceena maanta ayaa ku saabsan 10 waddan ee ugu waaweyn Afrika. Suudaan waxay ahayd beer leh 2.5 milyan oo kiiloomitir, horeyna u ahayd waddanka ugu weyn Afrika ilaa South Sudan ay si rasmi ah uga go'day 2011. Haddaba, haddaan ka bilowno lambarka 10aad anaga oo hoos sii daadegayno. Lambarka 10aad ayaa waxaa ku jirta Itoobiya oo leh dhul cadadkiisu gaarayo 1.1 milyan oo kiiloomitir. Itoobiya waxay ku taalaa geeska Afrika, haddaba qiyaastii 87.9 milyan oo qof ayaa ku nool Itoobiya. Waa ummadda ugu badan adduunka ee aan bad lahayn. Caasimadda Itoobiya iyo magaalada ugu dadka badan waa Addis Ababa. Qiyaastii 0.7% ee qaranku waa biyo. Lambar 9, Koonfur Afrika oo leh dhul cadadkiisu gaarayo 1.2 milyan oo kiiloomitir. Koonfur Afrika waxay leedahay 2,798 kiiloomitir oo xeeb ah oo ku tiirsan koonfurta Atlantic iyo badweynta India. Tirada dadka Koonfur Afrika waa ku dhowaad 55 milyan oo qof. Waa waddanka 25aad ee adduunka ugu dhulka weyn. 8, Mali oo leh dhul cadadkiisu gaarayo 1.2 milyan oo kiiloomitir. Dalkan galbeedka Afrika ee aan badda lahayn wuxuu leeyahay dad ku dhow 14.5 milyan. Xuduudaheeda waqooyi waxay gaarayaan qoto dheer bartamaha Saxaraha. Inta badan dadka degan waxay ku nool yihiin qaybta koonfureed ee dalka oo ay ku yaalaan labada webi ee Niger iyo Senegal. 7, Angola oo leh dhul cadadkiisu gaarayo 1.2 milyan oo kiiloomitir. Tirada dadka ku nool Jamhuuriyadda Angola waa ku dhowaad 24.38 milyan. Qaranku wuxuu ku yaalaa koonfurta Afrika. Angola waa waddanka 22aad ee ugu weyn adduunka. Waa laba jibaar Faransa. 6, Niger oo leh dhul cadadkiisu gaarayo 1.2 milyan oo kiiloomitir. Dalkan bad la'aanta ahi waa ummadda ugu weyn galbeedka Afrika. In ka badan 80% dhulkeeda waxaa daboolay lama-degaanka Saxaraha. Dadka ku nool Niger waa ku dhowaad 15.73 milyan. 5, Chad oo leh dhul cadadkiisu gaarayo 1.2 milyan oo kiiloomitir. Waddanka bartamaha Afrika oo aan badda lahayn ayaa dadkiisu yihiin 10.33 milyan. Qiyaastii 1.9% Chad waa biyo. Harada Chad waa dhul beereedka ugu weyn ee Chad iyo tan labaad ee ugu weyn qaaradda Afrika. 4, Liibiya oo leh dhul cadadkiisu gaarayo 1.7 milyan oo kiiloomitir. Waddanka waqooyiga Afrika ee Liibiya waa waddanka 7aad ee ugu dhulka weyn adduunka. Tripoli waa magaalada ugu weyn waana caasimadda Liibiya. Qiyaastii 1 milyan oo ka mid ah 60 milyan ee Liibiya ku nool waxay ku nool yihiin Tripoli. 3, Suudaan oo leh dhul cadadkiisu gaarayo 1.8 milyan oo kiiloomitir. Suudaan waa jamhuuriyad carbeed oo ku taalla dooxada Niil ee waqooyiga Afrika. Webiga Niil wuxuu ummadda u kala qaybiyaa qaybo bari iyo galbeed ah. Qiyaastii 37.2 milyan oo qof ayaa ku nool Suudaan. 2, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo leh dhul cadadkiisu gaarayo 2.3 milyan oo kiiloomitir. Dalkan bartamaha Afrika wuxuu ku yaalaa dhul-baraha. Dadka ku nool Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo waa ku dhowaad 4.66 milyan. Dadka tirada yar ee dalku waxay ku urursan yihiin koonfur galbeed. Ugu dambeyntii, Algeria oo leh dhul cadadkiisu gaarayo 2.3 milyan oo kiiloomitir. Algeria waa waddanka ugu weyn qaaradda Afrika, beed ahaanna waa waddanka 10aad ee adduunka ugu weyn. Qiyaastii 90% Algeria waa lama-degaan. Miisaaniyadda difaaca Algeria waa tan ugu weyn Afrika. Tirada dadka reer Algeria waa ku dhowaad 38.7 milyan.